Jeffrey Dahmer waa mid ka mid ah dilayaashii ugu arxanka darnaa, ugu xaasisanaa, ugu naxariista darnaa, uguna bahalsanaa ee soo mara adduunka, kaasoo u dhashay dalka Maraykanka. Dabeecaddiisa deggan ayaa u sahashay in muddo 13 sano ah uu ku qaldo booliiska isaga oo dilay 16 qofood. Waqti laga joogo 30 sano kadib ayay sheekadiisii mar kale soo jiidatay dhagaha iyo indhaha dadka caalamka ku nool. Haddaba waa maxay sheekada Jeffrey Dahmer? Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soo dhawaada saaxiibada sharafta badan. Halka inaga daawanayso waa janaalkeena Fasoon. Haddii aad tahay saaxiib nagu cusub, waxaan kaa codsanayaa inaad janaalka subscribe inoo saarto, gambaleelkana aad furtay si muuqaalada aan u soo gudbino aad u noqotay qofka ugu horeeya ee daawada. Waxaan gudagalno sheekada dilaagii weynaa ee Jeffrey Dahmer. Intaadan gelin sheekadiisa arxanka darada ah ee dilaanimada ah, marka hore waa kuma Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer waxa uu ku dhashay dalka Maraykanka sanadii 1960kii 21 May. Wuxuu lana noolaa hooyadiis iyo aabihiis oo lagu kala magacaabo Leonard iyo Joyce Dahmer. Jeffrey Dahmer carruurnimadiisii ma ahayn qof faraxsan, waayo waxa uu ahaa qof iska aamusan. Qoyskiisu waxa ay ka koobnaayeen 4 qofood oo isaga ku jiro walaalkiis ka yar, hooyadiis iyo aabihiis. Jeffrey Dahmer carruurnimadiisii ma uusan lahayn wax hobby ah, mana jirin qof weydiiyo waxa uu jecel yahay iyo waxa uu neceb yahay. Maxaa yeelay hooyadiis iyo aabihiis mar walba iyagu ayaa ahaa kuwo isku qayliyo, ayaa ahaa kuwo mar walba buuq iyo dagaalkooda aan marnaba guriga ka dhammaanin. Waqtiga keliya ee hooyada iyo aabbaha ay isku buuqaynin waa marka aabbaha uu guriga ka maqan yahay ama hooyada ay hurdayso oo aabbaha keligiis guriga joogo. Sanado badan kadib, hooyadiis iyo aabihiis ayaa isku afgartay in ay kala tagaan ama ay isfuraan, waxayna kala qaateen labadii wiil. Jeffrey Dahmer waxa uu raacay aabihiis, halka wiilkii ka yaraana oo uu raacay hooyadiis. Jeffrey Dahmer aabihiis waxa uu ahaa saynisyahan cilmi baara ah. Maalin ayuu waxa uu arkay wiilkiisa uu daawanayo jiir ama dooli dhimanayo, wuxuuna aabihiis naftiisa u sheegay in wiilkiisa uu jecel yahay waxa uu jecel yahay oo ah cilmi baarista. Aabihiina waxa uu bilaabay inuu wiilkiisa baro sida xayawaanka marka uu dhinto xubnihiisa iyo lafihiisa la iskugu dhajiyo loona kala qaado, balse ma ogo in wiilka uu rabo inuu dilaan noqon doono. Jeffrey Dahmer markii uu jiray da'da 13 sano waxa uu bilaabay inuu dilo qof kaas oo meel xaafadiisa u dhow ku ordo subaxii. Waxa uuna qorsheeyey inuu ninka meesha u fadhiisto kadibna uu bir ku garaaco, balse qofkii uu sugayo subaxii meeshii ma imaanin. Jeffrey Dahmer markii uu gaaray da'da 14 sano waxa uu bilaabay inuu saa'id u isticmaalo khamriga iyo daroogada, waayo waxa uu noqday qof keligiisa nool, waayo aabihiis ayaa magaalo kale shaqo u aaday. Jeffrey Dahmer dilkii ugu horeeyay waxa uu geystay June 1978 isaga oo dilay wiil 18 sano jir ah, kaas uu ka soo waday xaflad. Waxa uuna ku dhahay inakeen xafladda inta ka dhiman xaafadda ayaa ku dhammaystiranaysaa. Sidaas ayuu wiilkii ku soo raacay. Kadib markii wiilkii guriga keenay, Jeffrey Dahmer waxa uu bilaabay inuu wiilka dabin u dhigo, dabinkaas oo ah in uu cabitaanka ugu daro waxyaalo qofka oo miirkiisa ka tagsiinayo ama hurdaysiinayo. Kadib wiilkii waxa uu dareemay ninkan Jeffrey in ay wax ka khaldan yihiin, waxa uuna isku dayay in uu guriga ka baxsado, balse Jeffrey Dahmer ma uusan doonaynin in ay cidna ka tagto, ee waxa uu doonayay in lala joogo. Wuxuuna wiilkii ku dhuftay bir ka mid ah birarka jimka lagu qaado. Kadib markii uu birtii ku dhuftay ayuu haddana wuxuu ugu sii daray inuu ceejiyo. Arxan daradiisii uu meeshaas ka bilaabay waxa uu ugu sii darsaday in uu bilaabo inuu wiilkii xubnihiisii cadcad u jaro, wuxuuna u geystay kufsi ama galmo ayuu ugu sii daray. Tacadigaasna waa u geystay. Intaas kuma keenin, waxa uu bilaabay in xubnihiisa muhiimka ah uu ka soo saaro una practice gareeyo. Aabihiis waxa uu baray iyo qaabkii lafihii la iskugu keen lahaa.
qofkii ugu horeeyey ayaa lagu magacaabayay wiilkaas ayaa lagu magacaabayay Stephen Higgs. dilkaas kadib Jeffrey Dahmer muddo 9 sano ah wax ma uusan dilin. waxa uu go'aansaday in uu ku biiro ciidamada Mareykanka. ciidamadii Mareykanka markii uu ku biiray, dabeecadihiisa xun iyo dhaqamadiisa gaarka ah ayaa wuxuu ku muteystay dhowr jeer in uu xabsi ku galo. kadibna ugu dambeyntii waxaa laga saaray xabsigii. Jeffrey Dahmer waxa uu ku soo noqday gurigii ayadiisa, isaga uu meesha ka bilaabay in uu dilo dadka kale. Jeffrey Dahmer markii laga soo saaray ciidamada waxa uu ku soo noqday guriga ayadiis, isaga oo meesha ka sii waday falkiisii dilaanimo. isaga oo markaas dadka guriga inta uu keeno ayuu cabitaanada waxyaalo ugu dari jiray markasto. sidaasna waxa uu ku dilayay in ka badan 13 sano dil. Jeffrey Dahmer dadka ugu badan oo taageeraysan jiray waxay ahaayeen dadka madowga ama dadka Laatiinka ah. ayuu wuxuu dhihi jiray xaafad inuu ku balansado dabina uu dhigi jiray. dabinkaas ayuu wuxuu u samayn jiray in uu qofkii cabitaanadiisii wax ugu daro. kadib markii cabitaan qof wax ugu daro, qofkii inuu sawir ka qaado intuu dhimanin, markuu dhintan inuu sawir qaado, xubnihiisa jarjaro. waxyaalaha uu wax ku dili jiray waxaa ka mid ahaa sida birar la kuleeyo kale oo mindi saa'id laga dhigay. waxyaalaha oo wax lagu duleeliyo kale ayuu qofku marmar qaar maskaxdiisa ugu duleelin jiray. kadib qofkii markii uu dilo, xubnihiina uu ka baxsado oo uu meesha dhigto, waxa uu bilaabi jiray inta soo hartayna in uu gubo oo maxaa la dhahaa qashin ku daro. falkaas uu sameynayay ma jirin cid ka shakisay markii laga reebo haweeney dariskiisa ahayd oo iyadana markii ay aragtay gurigan shanqarta ka yeerayso iyo dhaqamada ninkan, waxa ay bilowday in ay ku wargeliso ciidamada booliska. balse booliska arinta oo ay soo gudbinaysay way iska indhitiri jireen, waxay ka soo qaadi jireen waxaana jirin. Jeffrey Dahmer waxa uu sidaas ku dili jiray sanado badan iyadoo oo aan booliska imaanin, ilaa iyo 16 qofood ayuu wuxuu ku dilay sidaas. sidii uu wax u dilabo waqtigiisa uu socdaba dilaanimada sanadii 1991 bishii Juulaayo waxa uu gurigiisii ku casuumay mid ka mid ah dhibanayaashiisii oo madow ah oo lagu magacaabayay Tracy. Tracy markii uu guriga imaaday ayuu wuxuu dareemay in guriga wax ka qaldan yihiin, ninkaana sidoo kale wax ka qaldan yihiin. wuuna shakiyay, ma ogo in uu midkaani yahay kiis 18aad oo uu dil rabo Jeffrey Dahmer. maxaa yeelay ninkan wuxuu uu dareemay in guriga waxyaalo ay ka soo ururayeen dhiig iyo waxyaalo, iyo ninkan markii guriga la imaaday dhaqankii waxa uu sameynayo, halka Jeffrey Dahmerna oo uu qorsheynayay dabinkiisii ahaa in uu cabitaankii wax ugu daro. Jeffrey Dahmer markii uu cabitaankiisii wax ugu soo daray ninkii u keenay, Tracyne uu shaki qaaday. Tracy ma uusan cabin cabitaankii, balse Jeff Dahmer waxa uu dareemay inuu ninkan cabitaankii cabin, halka Tracyne uu bilaabay inuu guriga ka baxsado. meeshaasna waxay isku dagaaleen, dagaal ayaa dhex maray. ugu dambeyntii Tracy waxa u sahashay inuu gurigii ka baxsado oo uu banaankii tago. kadibna waxa uu wargeliyay booliskii ayaa waxay imaadeen gurigii markay imaadeen waxa ay bilaabeen in ay wareystaan, in ay guriga baaraan. maxayba guriga baaraanbo gurigii markii la baaray waxaa laga helay lafa bini'aadan, waxaa laga helay xubnaha bini'aadanka oo la jarjaray, waxaa laga helay lafa la shiiday oo la gubay, waxyaalo badan oo muujinaya cadeymihiisii bahalnimo ee dilaanimada ah ee uu u geysanayay in ka badan 13 sano oo uu dilaanimada ahaa, isaga oo dilay in ka badan in ku dhow 17 qofood, halka kiis 18aadna uu ahaa Tracy, kaas oo fashiliyay safarkiisii ama dilaanimadiisii qarsooneed ee uu dilayay dadka, weliba u dilayay sida aan arxanka ahayn. Jeffrey Dahmer markii la keenay maxkamadii ay ku cadaatay in uu geystay dambiyadaas, waxaa lagu xukumay in ka badan 900 oo sano, taas oo loo fiiriyay dadkii kala duwanaa oo uu dilay. ninkani dadka uu dilayay inta badan waxay ahaayeen dad da'dooda aan aad u weyneyn oo 18 sano, 14 sano jir, 20 jiro meelahaas ayuu ahaa dadka uu ugaarsan jiray oo dili jiray, hana ugu badnaadaan dadka madowga iyo dadka Laatiinka ah.
Jeffrey Dahmer mar la weydiiyey oo ahayd waa maxay sababta uu dadkan u dilayay intaasoo sano, waxa uu ku sheegay inuu dhahay anigu ma dooneynin in aan qofka dilo, balse waxa aan doonayay in uu qofka marna iga tegin oo maxaa la dhahaa ani aan kontaroolo, ani aan maamulo. sidaas ayuu ku sheegay wareysi uu bixinayay. Jeffrey Dahmer muddo markii uu xabsiga 2 sano ku jiray waxaa dilay isagana nin kale oo madow ah kaas oo ay xabsiga isku qabsadeen, waxaana sidaas ku dhamaatay chapterkii dilaanimada ee Jeffrey Dahmer. Hadda waa maxay sababta hadda keentay Jeffrey Dahmer sheekadiisii inay mar kale shaashadaha caalamka iyo dhagaha caalamka ay qabsato? Maxaa yeelay shirkadda Netflix ayaa waxa ay ka sameysay musalsal taxane ah oo Jeffrey Dahmer ku saabsaneyd sidii wax u dilayay, qaabkii uu wax u shirqoolayay, dabinada uu dhigayay. taas ayaa waxaa keentay in ay dadkii in badan sheekadiisii isweydiiyaan. Haddii aad ka heshay sheekooyinka dilaanimada ama serial killerka noogu reeb commentiga wixii fikrad si aan usoo badino muuqaalada ku saabsan dilaanimada serialka aad waa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. intaan kulmi doono muuqaalka xigo, waxaan kaa codsanayaa haddii aad muuqaalka like saarin inaad like saarti, haddii aadan subscribe weli saarinne inaad subscribe soo saarto, haddii aadan hore u share garayninne waxaan kaa codsanayaa inaad 3, 2 ilaa 5 qofood intii awoodin u share garayso. wixii fikir iyo talo iyo tusaale ahna waxaa noogu reebtaa qaybta faalada ama commentiska. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.